مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بأصحاب تقاليقا ku xidhan NM Beauty soo dhawaada. haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar. haddaad hore noola joogtay soo dhawow mar walba gambaleelkeerna furo ama jeliska si aad ula socoto video kastoon soo gelina insha Allah faa'iidadiisana aad u hesho videogana dhammayso. maanta waxaan idin wadnaa suxuur caafimaad leh oo laga sameeyay qamadi iyo digaag. marka waana suxuur tayo fiican leh, qofku maalintii oo dhan ku soo manaan karayo, caafimaadkeeduna wanaagsan yahay, waxayna u fiican tahay badanaa dadka cilada leh gaasta iyo waxyaabahaas. marka waxa laga sameeyaa qabandiga nooca yara buurbuuran, qabandiga cad magac kale uma aqaano. waad soo maydhaysaa, waxaad ku daraysaa digaagana waad soo nadiifinaysaa, waad soo maydhaysaa, distida naqaskaad ku wada ridaysaa. distida naqaska haddaanad haysan disti caadi aad ku karsanaysid waxay kaaga baahanaysaa waqti dheer inaad karisid, waayo qabandigu adag yahay. laakiin distida naqasku ilaa 30 mirir 40 mirir way ku bislaynaysaa si fiican. digaag iyo qabandiga marka isku dartid biyaad ku daraysaa, biyo ku filan. waad xiraysaa markaa milix iyo waxba horta imika kuma daraysid, markay bislaato kadib baa milixda lagu darayaa. intaasaa isku soo karinaysaa si fiican. waana suxuur aad iyo aad u wanaagsan. carabta xoog u jecel isticmaalo, soomaalidana dadka qaar kulli way yaqaanaan, laakiin digaag inta badan kuma darsanayno qabandiga. fitamiin fiican buu yeelanayaa marka lagu kariyo digaaga. marka waa kan uu soo bislaaday ilaa 40 mirir kadib waad furaysaa distida. markaa saasuu soo baxay, milixdii baad ku daraysaa. digaagii wuu baaba'ayba, wuu ku dhex burburay. milixda markaad ku darto waad dib baad iskugu yara karinaysaa si milixdu u yara dhex gasho. markaa intaa dib ayaad iskugu yara ridqi doontaa. looma baahna ridq xoog oo aad xoog u shiidayso maaha, laakiin lafahaad ka saaraysaa digaaga kadib waad isku yara siir dhex gelinaysaa si ay digaaga iyo qabandigu isku dhex galaan. marka biyaha yare hore hadday kugu badan yihiin iska yara kala shub. qabandiga adag iyo digaagii oo lafii ka saartay baad isku yara shiidaysaa. markaa balse inoo soo baxaan insha Allah waan eegaynaa. mishiinkaas ay ku yara shiidaysaa. haddaan mishiinka hayna malqacada si fiican ugu burburinaysaa. waxaa laga wadaa inuu smooth yar noqdo, is dhex galo. marka maasha Allah tabaarakallah, waa cunto aad u macaan oo anigu aan jecelahay horta bisaraaxa runta fiican. waa cunto fiican oo macaan, inkastoo waqti hore ugu dambeysana bariyahan cunin. markuu bislaaday sidaas uu soo baxay la isku soo yara shiiday, soo yar dhex galay. yacni calaalin fara badan kaagama baahna, yara shurbadoo kale u noqonayaa, laakiin jileec xoogana maaha oo la cabi karaya. waa in malqacad lagu cuno. waxaad ku darsanaysaa saliid saytuun ama waxaad ku darsanaysaa subag ama sudadada wixii aad jeceshahay. saddexdaa midaad u baahan yahay. marka waa ka maasha Allah tabaarakallah, waana cunto caafimaad leh, waana cunto tayo leh.